falaarta waxaa loo diri karaa oo keliya adigoo dib u jeedaya marka ay nolosha kugu jiidanayso adiga oo dib u leh waxaa loola jeedaa in ay nolosha ku sii soconayso in aad guul gaarto qof kasta oo u maleynaya in hadalku raqiis yahay waa inuu helaa talo sharciyeed qora ahaan waa inaadan xukumin waa inaad fahamtaa sida kuleelka la ilaaliyo loogu gudbiyo tamarta sidoo kale xanaaqa la xakameeyo waxaa loogu gudbin karaa awood dhaqaajin karta adduunka oo idil daawadi maysin فؤاد شغوف